بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إلهي وإنا إليه راجعون. maanta Soomaaliya waxa ku dhacay masiibo qaran baa ku dhacday. waxaan aad uga xumahay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada maanta ku habsatay caruuraha jaamacadaha ka yimid dadka shaqaysanayo meelaha maraya macna darrada lagu dilayo. Soomaaliya waxay ahayd maanta inay ka gudubto dhibaatada ka gudubto. Soomaaliya waxay ahayd maanta inay noqoto meel dawladdan maanta dhalatay shacabka Soomaaliyeed amnigiisa ilaaliso, jiritaankiisa ilaaliso, hantidiisa ilaaliso. waa ayaan darro maanta boqolaal qof meedkood in la kala garan waayo waa ayaan darro. hay-adaha amniga oo baryahan ku faanayay amni waanu dalka xasilinay waxa dhacay dalka waa u jeedaa. madaxweynuhu saaka wuxuu ku baaqay xalay ku baaqay muddo 3 cashaa baroor diiq in loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed. laakiin taas shacabka Soomaaliyeed wuxuu uma tarayso waxa qiimaha ugu ma fadhido. qiimaha ugu fadhiya waxa weeye in madaxda dalka ugu sareysa hay'adaha amniga qaranka si degdeg ah xilka uga qaado. haddii ayna iscasilin oo iyagu ayna isgaran in madaxda dalku ku samayso iscasilaad degdeg ku samayso loona diyaariyo xisaabtan dhama maxkamadda qaranna loo diyaariyo. maxaa yeelay dalka dhibaatada ku habsatay oo madaxda sare maanta aan ku eedeynayo ma ahan waddanka in lagu yiraahdo ree hebel haddaad xilka ka qaadid oo aad jagada ka bedeshid ree hebel baa xanaaqahaya dawladnimo laguma noqdo, nidaamna laguma noqdo, horumarna laguma gaaro. waxaan cod dheer ku jeedinayaa maanta mas-uuliyiinta dawladdu waa inay si degdeg ah u soo jeesataa shacabka Soomaaliyeed amnigiisa u soo jeesataa. arrintan maanta dhacday waxaan hay'adaha amniga la qaybsaday muddo laga jooga 2 bilood in gaari noocaas uu soo socdo oo khatartiisa wato dhag jiraq looma siin. maxaa yeelay hay'adaha amniga dadka jooga oo la geeyey laguma geyn aqoon laguma geyn karti ay leeyihiin ama amniga ay ku sugan looma geyn. waxaa loo geeyey ree hebel baa xanaaqahaya kan ku sii naas muujaa loo geeyey. dawladnimada saa laguma noqdo, horumarna laguma gaaro. maalin kastana boqolaal qof macna darro inay ku dhintaan oo tay inta la soo xirto oo habeena la shiray amnigii waanu sugna amnigii 100% baan ka dhigay. mas-uuliyiinta dawladda waxaan leeyahay haddaad amniga dalka sugteen oo wax yar aad macaasimadii sugteen ma ahan inaad ku faantaan amnigii baanu sugna. markaad ku faantaan amnigii baan sugna oo amni baanu muxuu ahaa muddooyinkan xamar qarax kama dhicin ku faantaan raggaad isaysaan oo idinka soo horjeeda jawaab bay bixinayaan tay bixiyana wataas. waad ogeydeen maalintii khamiista ahayd mas-uuliyiinta dalka qaarkood inay ku bayeeradeen dalkii amni baanu ka dhigin qarax iyo muddooyinkan ma dhicin. faanka inta laga daayo dalka dib ha loogu soo jeensado, waxqabad ha loo soo jeensado. dadka aqoonta u leh hay'adaha amniga, dadka aqoonta u leh muxuu ahaa aqoonta waxqabadka dalka u leh waa in ayaga aqoontii dalkooda loogu dhiibaa. dalkan uma baahna hebel baa ii soo lumgareeyey, hebel baanu saaxiib nahay, hebel baan muxuu ahaa maalin hadal fiican uma baahna. dalkan wuxuu u baahan yahay shacabka Soomaaliyeed hay dhageysteen 20 qof ha ahaadeen 30 ha ahaadeen hadday walaalo yihiin aqoontooda waa in loogu dhiibaa. dalka waa in laga joojiyaa saaxiibtina waa in laga joojiyaa. dalka waa in laga joojiyaa ree hebel baa xanaaqaya waa in laga joojiyaa. ree hebesheen xanaaqay wataa maanta waxaana baday dadka halkaa boqol halkaa gubtay oo jirkooda gubtay oo u jeedaan waxa maanta ku dhacay. waxayna ma tarayso ree hebel ma tarayso, ree hebel baa xanaaqaysa ina ma tarayso. waxa ina taraya wiilka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed sidii u badbaadin lahayd oo sharaftiisa u soo celin lahayd taas aynu magciiseen. qaranka Soomaaliyeed uma baahna dib celin dambe. 20 sano burbur iyo dhibaato soo dhex maray. saxaafadda waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inaad shacabka Soomaaliyeed gaarsiisaan codkiina meelka gaarsiisaan. inaad waxa jira dalka aad ka sheegtaan inaydan ugu aabayeelin muxuu ahaa waa la idin xiraya maana waa inaad xaqiiqda dhabta dalka waxa ka jira u sheegtaan. baaqaana wuxuu ku wajahan yahay
madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr baarlamaanka Soomaaliyeed dhammaan qof kasta oo mas'uul ah dalkan mas'uuliyad baa ka saaran sida ugu dhaqsaha badan shacabka Soomaaliyeed inta artay in la badbaadiyo mas'uul baa ka saaran مسؤوليات باكسارا قف كستو سوماليا nimankiisa inaga nabadisa la ilaaliyo nimanka ciidamada wadariiqada taagan xaq ma martid aad iyo aad u naasayeen asaatay dhibaatada waxa haysata askari saakay la soo istaajiyay hal saac subax la soo istaajiyay 48 saac aan la bedelayn oo aan xuquuqdiisii la siinaynin oo koob shaa wuxuu ku cabaan haysan sidee buu gaari qarxis u baaraya sidee buu control u sameynaya توتا لوسا بشمال بالاستاتشي مسؤولين تضلكوا ديب هيسوون نقدين وانا إننا باقاس ما أنت أن صوت صاري شواب دقدقة وين كبحيان شعب كصومالي نهدق يستو شواب دقدقة وين كبحيان باقا وحكوس على مسؤولين تضلكوا قصر يوقف كستوقعيوهان أو الصوماليات وما أنت أركي دباتها هكا كدعي ما أنت أركي بقول لكم باولي كو حبالا محواها قريها هوستو كو حبالا نسود بين كو حبالا إن لقا عندك قرصة أو لقا مسماها مرلبات waxaan ku celinayaa waa in hay'adaha amnigu degdeg isu casilaan 48 saacadood haddayna isku casilin oo ay door bidahayaan dantooda khaaska ay bidahayaan oo ayna bidayn danta guud ee shacabka Soomaaliyeed oo baabahay ayna bidaynin oo is casili waayaan waa in mas'uuliyiinta dalku ugu sarreeyaan wax ka qabtaan oo tilaabo qaadan oo qof walba xilkiisa ku waaya oo xabsi lagu galaa aad iyo aad u mahadsantihiin